ومركل iyo boqorka farxadda iyo safarkii xasatoob ee Amerika waa tagi weysay Mareykanka adigoo laan dheernimo sheeganaya balse waa uu tagay isagoo waliba hal maalin xitaa laan dheernimo uusan ku faanin kuwa kale oo laan dheernimo sheegan jiray waxa ay mareen dhibaato badan si ay Mareykanka u gaaraan kuna darso waliba waxa ay mareen keymaha halista ah ee Amazon oo lagu daray jafti Mexico iyo xayndaabkii weynaa ee darbigii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Mexico balse daawade boqorka farxadda waxa uu warbixin gaar ah ku eegi doonaa laangaabkii gilgilay quluubta kuwa sheeganaya laandheernimada shakhsigan aan ka hadlayo waa Xasan Mustafa Isxaaq Maamow Xasatoob wiilkii nasiibka badnaa Soomaaliduna ay la yaabeen tolow madabada ayuu xunqor ka leeyahay ku dheedo waa yaabee waxa aan ku sheegi doonaa saddex qaab oo u sahlay Xasan Mustafa Isxaaq Maamow Xasatoob inuu Mareykanka si sahlan ah ku galo haddii aad marto wadadaasi waan hubaa inaad gaari doonto yoolkaaga gaarisa carigaasi Mareykanka fadlan muuqaalka la garay oo share garay kuna soo biir bahdeena boqran ee boqorka farxadda barakada ee baweynina korkiina ahaato umahadsan tahay soo dhawaw Washington ku soo dhawaw aqalkii cadaawa kana ee Mareykanka waa kaasa Biden meeshuu fariisanayo waaye xafiiskii Biden uu fariisanayo asaan anaga ag joogtaa oo u sii dhawaan kartaa gudaha waa gali kartaa si fiican ma sha Allah gudaha waa hagaag Xasatoob waxa uu mar qula gilgilay baraha bulshada kadib markii uu ka soo muuqday sawir iyo muuqaalo oo muujinaya isagoo Mareykanka dhex taagan taas oo loo qaadan waa ku noqotay dadyow badan oo sheegan jiray inay laandheeryal yihiin hala yaabin sababtoo ah ninkan waxaad dhihi jirteen waa laangaab balse aan ku weydiiyey adiga oo laandheernimo sheeganaya ma ku tagi kartaa Mareykanka sida uu ku tagay Xasatoob haddaba si aan ku baro sifaha fudud ee wiilkan uu maray si aad adna Mareykanka u gaarto fadlan raac tilmaamaha aan ku sheegi doono si aad u gaarto Mareykanka Xasatoob marka hore nasiibka ayaa saaciday oo lagu daray laab xaarnaantiisa qalbigiisa oo waasac ah ducada waalidka iyo waliba dadnimada ee bowdhaliyay waxaana azuumay saaxiibo ku sugan halkaasi madal sanadeed sanad kasta lagu qabtaa gudaha dalka Mareykanka inkastoo aan wax qarasha uga bixin haddana waxa uu ku safray baasaboorka shacabka ee Soomaalida isagoo waliba haysta baasaboorka diblomaasigiisa waxa uu ka doorbiday baasaboorka shacabka safarkiisa azuumaadka ahaa waxa uu ka dhigi doonaa muwaadin Amerikaan ah ha ku riyoon inuu Muqdisho ku soo laabto khudbad cajiib ah ayuu ka jeedin doonaa Mareykanka kaas oo uga hadlayo waayihiisii waxbarashada mishaarkii muddada 2 sano ee $1 barka u shaqaysanayay iyo dhibaatooyinkii macluusha ee kala kulmay gudaha dalka Soomaaliya waa diblomaasi firfircoon hadal yaqaan ah faahin ah oo farxadda xambaarsan laangaabkani waa mid isku kalsoon kana dhashay boqortooyada Elay ee reer Burxakaba daawade si aad adigna isaga bareejeyso laangaabkaas waliba adigoo sheeganaya laandheero u sheeg hooyada inay ku iibiso booska weydow ku yaala oo 7,000 ah gaariga walaalka oo 2,000 ah iyo mobilka iPhone-ka oo celis noqonaya oo 1,000 ah 10,000 waxaad ku aadaa Nairobi ilaa iyo Mexico kadibna waxa ku bilaaban doona saxarihii iyo dhibaatadii kaymihii Amazon wiilkii mucjisada ee 2023 Xasan Mustafa Isxaaq Maamow Xasatoob waa lejan socdaal oo ku leh laangaabo waxaa tahay laangaab isku kalsoon bye bye